kulanti habboon daawadayaal idil ahaantiinba meel kaste oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhawaada waraysi gaara oo aanu ka qaadi doono siyaasi cabdilaahi axmed maxamed dahab oo ka mid ahaa xisbiga mucaaridka ah ee wadani. cabdilaahi dahab waxa uu jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho ayaa uu ka baxay, waxaana uu ka baxay qaybteeda shansa dibaasha amaba laamaha cilmiga. sidoo kale cabdilaahi waxa uu ka soo shaqeeyay ganacsiga, waxaana uu muddo 8 sano deganaa dalka Imaaraadka Carabta. cabdilaahi sidoo kale waxa uu ahaa mas'uulkii ugu horeeyay ee fura shirkadda isgaarsiineed ee gobolka Sanaag ay yeelato. intaas kadib cabdilaahi waxa uu ku biiray ama uu ka mid ahaa dadkii ka soo qayb qaatay furistii ururkii Sahan, isagoona ka mid noqday guddida fulinta ee ururkaasi iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag ee ururkaasi. intaas kadibna waxa uu ku biiray xisbiga mucaaridka ah ee UCID oo isagana uu ka soo mid noqday guddida fulinta iyo waliba gudoomiyaha gobolka Sanaag ee xisbigaasi. ugu dambeyntii cabdilaahi waxa uu ku biiray xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo uu ka mid ahaa dadkii ururadii iyo furistii ururkaasba ka soo qayb qaatay, xilal kala duwan ka soo qabtay. waxaana uu cabdilaahi ururkaasi xisbigaasi aan idhaahday wadani ka gaadhay ilaa uu ka mid noqdo xubin ka mid ah guddida fulinta ee xisbigaasi. cabdilaahi ugu horeyn waxaa kuu soo dhaweynaya telefishinka Cable. soo dhawow. السلام ورحمة الله ما شاء الله. way cabdilaahi ugu horeyn sidii la wada socono muddooyinkii ugu dambeeyay amaba bilihii ugu dambeeyay waxaa jiray ama soo baxayay in guddida fulinta ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani ay xisbigii ilaa ururnimadii aad ka mid ahayd ee muddada dheer ku jirtay ay kaa caydhiyeen. bal ugu horeyn adoo soo dhawaanaya maxaad u malaynaysaa sababaha lagaga caydhiyay xisbigaasi inay tahay? السلام ورحمة الله وبركاته. هون كيبل soo dhawaada waa mahadsantihiin. runtii xisbiga wadani wasaad sheegtay wuxuu ka yimi markii hore xisbiga UCID baanu ahayn, isqabad dheer baa samaysmay, dabadeedna xisbigii laba u kala jabay. rag waaweynoo iminka ragna nool yihiin ragna dhinteen ayaanu ahayn. raggaasi markii dambe sheekadii dheereed ee UCID ishaynteedii waxay ku soo dhammaatay in aanu furanno urur noo gaara oo wadani la yidhaahdo. marka raggii asaasayaasha ahaa rag farakutirisa dee hadda iminka jooga iyo haweenba ujeedooyin aanu lahayn oo aanu ka fekeraynin dalkan horumarintiisa iyo sidii loo keeni lahaa xukuumadda ka duwan xukuumadihii hore ka duwan oo horumarsan xagga dhaqaalaha, xagga siyaasadda, xagga ixtiraaf raadinta, xagga dhinac walba ka horumarsan ayaa ajandahaas ayaa noo yaalay. dabadeedna raggii isku fikradda ahaa iyo haweenkii isku fikradda ahaa ee meesha hawsha waday waxa aanu sameynay ururka la yidhaahdo wadani. ururka wadani dabcan waa garanaysaan, laba xisbi way soo noqdeen, kulmiye iyo UCID way soo noqdeen oo horey u jireen. wadanina wuxuu ahaa urur cusub oo kasoo dhex baxay 15 urur oo runtii halgan dheer iyo adeeg fara badan oo aanu halkaa kala kulannay. gobolladii dalka oo dhan ka helay lambar fiican ka helay, waanu soo saarnay alxamdulilah. dabeedna waanu soo baxnay, dabeedna xisbi baanu noqonay. raggii asaasayaasha ahaa waa markaa ragna dee hawsha u tafaruqeen oo iyadii ku kaliyeysteen, ragna mataqaanaa danahoodii dee dib u raaceen. raggii markaa ku tafaruqay ee danihii kala dhan joojiyey ee kaa un ka shaqeeyey ayaan ka mid ahaa. halgan badan kadib waataanu galnay doorashadii 17kii haddaanu galnay doorashadiina waa tii nalaga badiyey. 17kii kadibna dhacdooyin 17ka ka horeeyey oo intaan doorashada la gelin ka horeeyey oo fara badan oo dee intaa raggu isqabanayaaye aan u arkaynay inaan guul u gaadhayn oo isqabad fara badana way jireen. waanu ka heshiinay oo laga soo gudbay. 17kii baa la yimi. 17kiina waxyaalihii aanu ka digaynay oo dhan baa dhacay. waa sababta keentay inuu xisbigu dhaco. waxyaabahaas marka waan ku soo wadaa 17kii markii ay koosgareysay inaanu dhacno ayaa dib loo fadhiistay. waxaa la isweydiiyey maxaanu ku dhacnay. ku dhiciddii waxay noqotay in la xisaabiyo, in la yidhaahdo kaa iyo kaa iyo kaa wixii khalad ahaa oo dhan lasoo dhigo. guddi baa la saaray, gobollada dalka ee mareen
way baareen dadka oo dhan bay su-aalo weydiiyeen mas-uuliyiintii muddadaasi si fiican bay u shaqeeyeen maxsuulkii ka soo baxay wuxuu noqday mid khalad maamul ah oo xisbigu guulaysan lahaa haddii khaladkaa maamul la sixi lahaa leanno jaanis fara badan baanu haysanay muddaanu dhisnayn awood badan baanu markaa lahayn dhaqaale iyo siyaasadba waxaanu haysanay jaanis wanaagsan wixii la khalday waxay keentay inuu xisbigii dhaco nasiib daro waxay ku soo ururtay eedii oo dhan saaxiibkii cabdiraxmaan ayay ku soo ururtay siduu u maamulay dhaqaalihii siduu u maamulay mataqaanaa hawshii isagaa loo igmaday ee siyaasadda ahayd waxaasoo dhan markii ay noqdeen kuwo mataqaanaa heerkii la rabay aan gaadhin waxay keeneen inuu xisbigii dhaco markay noqotay inuu saas dhacdo annagu markiiba kulumaanu boodine waxaanu samaynay odaygii inaanu samayno jaanis siino jaanis baanu siinay dib baanu fadhiisanay waxaanu de waxaasaa dhacay wixii hala saxo wixii markaa hala saxo la yidhi waxay noqotay muddo dheer bay qaadatay muddadaa dheer qaadatay intaa waa la isqabanayey oo waa la isqardoofayey waa la wada hadlayey oo waa la garnaqayey oo waa la ishaystay oo aniga iima qurqursanayn in sidii hore dagaalka lagu galay mar labaad lagu galo iyadoo khaladkii hore uu joogo khaladkii baa khalad lagu sii daray then maxay noqotay muddo dhexaba inaan anigu aan xisbigii aan dibadda uga baxo oo aanan shirarkii tegin oo aan idhaahdo war dee waxaana wadaan wax guul lagu gaaraya maaha dadka iyaynaan la goyn ilan waxa wey markii hore dadku inoo hagar baxeen haddaynu maanta markaa ka dhigno sidii waxay hawsha wanaagsan tahay oo aynu tifiyadun kala hadalno oo aynu dadka u sheegno waxaan jirin dee mar labaad haddana haddaynu dhacno dadku ma jireen markaa anigu idinlama qabo sidan wax ku socdaan mudday socotay rag badan oo qiimo badan iyo haween badan oo qiimo badan intii hawshaas hadalkaasi socday way ka tageen iyagaas casilay gacantooda isku casileen waa wada garanaysaan markan dambe ee mataqaana allahuma salli calaa maxamed iswada casileen ay dhacday arrintii soo adkaatay aniguna aan xisbigii dee dad badan baan isku ra'yinahay oo hadda hogaanka ku jira oo fulinta ku jira oo golaha dhexe ku jira oo gudaha jooga dibadda jooga oo arkayo waxaan arkayo marka dadka iyaga dad badan baa is casiloo ka tegey dadna way joogaan marka waxaanu ku wadnay inaanu saxno arrinkan maadaama khaladku isagoo uu qura yahay maadaama arrinku uu sidaa yahay maadaama sixidii uu diiday maadaama waanigii anigu isa soo sharaxay markaan isa soo sharaxayna waa ogeydeen waxa weeye 48 saac gudahood bay ahayd waa anigii barnaamijkii uu suurtoobi waayey waa anagii ka noqonay deen maxaa dhacay waxaa dhacay shirkan soo socdaa hadduu inala gaadho cabdilaahi yani waxa weeye wuxuu inagu noqonayaa hawl kaloo adag markaa si loo fududeeyo si shirkan u qabsoomo oo ay uga helaan meel cidlo ah ay yidhahdeen cabdilaahi aanu gacanta u taagno aanu xisbiga ka saarno sidaasay ahayd sharci darrana way ahayd waana aqbalay sababtan ku aqbalay waxa weeye marka horaana ii qurqursanayn in sidan lagu socdaa aynu isu ku gaadhino way cabdilaahi intaan xisbiga lagaa saarin ka hor adiga ayaaba hore u sheegay inaad ka tanaashusay musharaxnimadaadii aad xisbiga ka sharaxnayd marka maxaad hadda isku waafajinaysaa ama aad isku qabansiinaysaa xisbiga laga caydhiyey iyo musharaxnimadaadii hore uga tanaasushay may taa iskuma qabadsiinayo oo waan ka tanaasulay waxaan uga tanaasulay sababta waxay ahayd markaan arkay golihii dhexe eeg waxa weeye xisbigan dhalilaha uu leeyahay waxaa ka mid ah golaha dhexe ee xisbigu tiro go-an oo la garanaya maaha tiro waa la sheegay oo lambar baa la sheegay laakiin lambarkaasi nooc u doon noqon kara maalinba 50 cusub oo kuwii hore aan ahayn ayaa lagu soo kordhin karaa oo lagana saari karaa waana u sahlan tahay guddoomiyaha isagana liiska haysta cid kaloo haysa ma jirto fulintu waa sidaas oo kale lambar go-an waa la sheegaa laakiin maaha marbay 120 noqdaan marbay 30 noqdaan marbay 40 noqdaan marba in baa lagu sheegaa marba dad cusuba weji cusuba la keenaa waa dhaliilaha aanu ka hadlaynaynu lahayn war dee xisbigu jiri maayo haddaan golo dhexo la yaqaana lahayn oo mas-uuliyiin weliba ah oo weliba deegaamo ka soo jeeda oo weliba tartanka geli kara oo la yaqaano haddaan lahayn xisbigu guulaysan maayo fulintuna sidaas oo kale fulintu macnaheedu waxa weeye dad waayeeloo deegaano ka soo jeeda oo cod u keeni kara xisbigii oo la garanayo oo qualitigooda la garanayo oo hebel iyo hebel leh oo in ay mataqaanaa yihiin laakiin haddii marba dad cusub oo suuqa jooga lagu soo kordhiyo arrintu xumaanaysa marka waxaa ku dhacay aniga musharaxnimadeedii markii habeenkii 150 kaar la daabacay oo 150 kaarna dabadeedna ay noqdeen kuwa dee laga dul keenayo intii markaa aanu ogeyn ee joogtay waxay noqotay dee meesha isqabqabsiguma fiicna
waxa weeye mar haddii sidaa tahay iskaga joog ka joogkaasaan ka joogay ayay taasi ku dhacday waxaan sugaynay runtii janis mar walba anigu dadka janiska siiyaan ahaa min bilow maalintaanu samaynay aadan mire waqaf uu guddoomiyaha noo ahaa ilaa maalinkaa aan ka baxayay saaxiibkii cabdiraxmaan wax uun baan markaa lahaa waryaa taasina waa khalad war taasina waa khalad war taana nama qabato war taana laakiin dee abuurta ilaahay lama bedeli karo qofka hadduu sidan u abuuran yahay waxba lagama bedeli karo taasaana runtii keentay in markan dambe ay sidan wax u dhacaan waana ka xumahay runtii waayo waxaanu lahayn mabaadi' baan lahayn oon ku aasaasnayn mabaadi'dii oo maalinba mid mataqaanaa guuf la tuurayo oo la baabi'inayo oo ugu dambeynta ilaa xisbi soo istaagay xisbi aan qof lena la garanayn wuxuu ku socdana aan la garanayn wuxuu doonayn aan la garanayn laakiin iska socda alxamdulilahi rabbi alcaalamiin dad taageerayaala oo nadiifa oo qiimo badan ayaa xisbigan jooga wuxuu iskaga socdaa marka mabda ahaan xisbiga dadka wadaa iyo waxaan la wadaa ay isku xidhan yihiin oo mabda-una cad yahay waxa weeye meesha u socday sida u socday xisbi waa la garan karaa inuu guulaysanay inaanu guulaysanayn waa la garan karaa laakiin xisbi subax waliba ay u tahay waa cusub oo mabaadidiisu ay iska hor iyo daba imanayso iminka waxaad garanaysaa intii turunturayna marnay ama hala maro komishino ha ahaadeen oo mid waliba ay naga raacaysay wari oo aynu 160 kulan wax ku badan aynu madaxtooyada waa sameeyno guddigii shanta ah baan ahaanigu u qaabilsanaa xisbiga mid waliba marka la soo gabagabeeyo guul darre ku dhamaanaysa guul darradaas number 1 isaga ka ahaa waayo meelo badan oo aynu kaga bixi karaynay jawaabka faraha badan oo aynu ku soo koobi karaynay ciyaarta jirtay oo isla markaa aanu taladii sidii loo baahnaa aanu u wadayn taasi markaa waxay keentay in xisbiga guuldarooyin fara badan oo siyaasadeed waa la socotaan taariikhda oo halkaa kala kulmo waxaa la socoteen inuu turunturooyin fara badan oo xaggii mataqaana mabaadi'da uu qaadanayo arrimihii DB Wall arrimo kale oo badan baanu qaadanay waa aragtida waa la kala duwanaan karaa waxaan sharci darro u arki kartaa laakiin waxaa muhiim ah dagaalkan aad galayso inuu exceed leeyahay meel aad kaga baxdo oon qarankana wax yeelin adigana wax ku yeelin xisbi ahaan inuu leeyahay laakiin hadday wuxuu lafajab wada noqdaan oo ay wada noqdaan wax adigana wax ku yeelaya dowladnimadana wax yeelaya qarannimada wax yeelaya dee waxay keenaysaa taasi dhibaato fara badan bay keenaysaa waana ta keentay mataqaana inaanu si adag isu qabano runtii way cabdilaahi maalintii xisbi lagaa cadhiyey isla markiiba warbaahinta la hadashay waxaa ka mid ahaa hadalladii aad warbaahinta ka horjeedisay waxaad sheegtay in gaadhi shaydaan waday aad ka degtay arrintaa maxaad uga jeeday bal dadka u fasir gaadhiya shaydaanka waday muxuu ahaa waxa weeye horta dee wax waliba waxay leeyihin dhextaal khudbadda maalintaas dhextaalkeeda wuxuu ahaa gaadhi jin wado gaadhi jin wado micnaheedu waxa weeye wax aan tala aan la garanayn halkay ka go-ayso iyo sida ay u go-ayso adna aad meeshii joogtood madax ka tahay oo habeenkii kugu soo baxaysa dad aan laayiq ahayn oo la magacaabayo dadka caaya maaragtay oo tviyada baalaha ka caaya facebookda ka caaya qabaa'ilka caaya oo dadka caaya oon waxba u reebin oo haddana xilal xisbiga looga dhibay miyaad arag yaa ka mid ah way soo baxaan maalin walba waad aragtaa facebook haddaad gasho waad helaysaa mid iyo laba maaha yaa ka mid ah dadkaa sheegayso waxa weeye wax ciiddaa ka badan teetalaa la wada siiyey xisbigaa teetala wada siiyey qabaa'ilkay caayaan ashkaasta madaxday caayaan dhaqan kale ma laha waa dhaqankan dadka qawqaa waa dad caaytamaya oo waxay ka hadlayaan aan la garanayn oo qofka shakhsiyadiisa caaya waxay caayaan guddoomiyaasha xisbiyada caayaan waxay caayaan madaxda ku xigtay caayaan waxay caayaan madaxweynaha caayaan wasiirada caayaan xubnaha sharafta leh ee xisbiyada ee fulinta ah ayay marba mid caayaan waa niman dee sodogiyo ah oo haddana aan waxba u aabayeynin qabaa'il dhan bay caayaan waa dadka Soomaaliland dhibaato badan ku haya ee runtii dadka kala geynaya way habeen oo dhan wax da'yar baa dhageysanaysa waxa ay shubayaan runba la moodaya in dadku sidaa kale yahay oo qabaa'ilku sidaa kale yahay oo ummaddu sidaa u kala fadhido waa duruus xun oo aad u khariban waxaana fiican in sharciga arrimaha social media uu soo baxo laana waxa way dadka noocaas ah bartaas lagu xukumi lahaa marka dambiyada noocaas ay galaan kala qaybinta ummadda ay galaan qabaa'ilka ay sida toosan u caayaan ay galaan dadka sharafta leh ee madaxda ee qaranka ee caayaan dadkii nooca ahaa oo habeen walba la dalacsiinayay markaad aragto oo adada warkana maxaad maanta magacawday uu yidhaahdo waa kana waxaan doonaynaa inayna difaacaan marka isaga maaha waxa weeye waa gaadhi jin wado cid kale ku shaqaysanaysa
marka sidaas ku soo baxaysa. cabdilaahi dadkaa sheegayso oo xisbiyada cayaan oo kama warhayno waxaan jeclaan lahayn adigoo isdul taagaya in dadkaa sheegayso xisbiga xilalka ka haya xisbiga loo keenay dadka cayaana dadka u soo bandhigto. abadan anigu hebel inaan ku idhaahdo dee meesha waan soo fadhiisane waa la garanayaa social media nin walba ku jiro wuu garanayaa teetal xisbina way kusoo galaan xisbigii calankiisii bay sitaan kii soomaaliyana markay doonaan bay soo qaataan labada calanna way isgarab sidaan qabaa'ilkii somalilandna way caayayaan individual corkii way caayayaan waxba u aabayeeli maayaan waa nimanan afka isku darayn oo dadkana kala geynayood garanayso oo backgroundkoodii horena aanu fiicnayn iminkana mataqaanaa dhib ummadda ula taagan waana ragga aan isleenahay hadduu ilaahay yidhaahdo shuruuc baa dalkan qaabilsan arrinkaasaa la samayn doonaa waxa weye bartaa ay joogaan baana lagu xukumi doonaa waxa weeye cidda ay khusaysana waanu kala xidhiidhaynaa iska daa in halkan oo keliya halkaasaan rabnaa inaanu ku weerarno oo u tagno waayo waa dad aan waxba xeerinin qabaa'ilkii iyo dadkii somaliland ee walaalaha ahaa ee xigtada ahaa ee qaraabada ahaa ee is ahaa ayay isku dul caayayaan oo caawo dhan caayayaan oo waxay u caayayaan qabaa'ilka aan la garanayn oo ummadda xisbigaana damageka ugu weyn wuxuu ka soo gaadhay markuu dadka noocaas urursaday oo dadka noocaas ay mateleen oo tvga yimaadeen oo qabaa'ilkii iyo dadka ay caayayaan xaggana ay leeyihin xisbigii baan ahay shame on you waxyaalaha ceebtaa wey. cabdilaahi dadkaa sheegaysa aanu garamayno laakiin waynu ka soconaynaa waxaa jirtay in iyana maalmihii u dambeysay waad la socotay xisbigii hore aad uga tirsanayd ee waddani waxaa jiray mas-uuliyiin badan oo dowladda amaba xisbiga kulmiya oo ku eedeynayay inay gacan saar la leeyihiin dowladda soomaaliya adiga laftaaduna maalintii u dambeysay aad hadlaysay waxaa sheegtay in inta aad xisbiga ku jirtay xitaa fara soomaaliya ay soo galeen bal xisbiga muddo dheer baa ka mid ahayd ilaa doorashadii 2017 waxa lagu eedeynayay inuu soomaaliya gacan saar leeyahay maxaad intaa ku ogid adigu eeg sideedaba mar haddaad adigu nin hulaabxin baa la yidhi inuu wax qarsanayaa la moodaa haddaad adigu u ekaato man shabaha alqowm fahuwa minhum baa la yidhi qofka isu ekeysiya qolo iyagu ka mid noqdaa khatar wey arrintaas marka adigu inaad maxallal yani meel isdhigto laga shakiyo ayay arrintan oo kale ku timaadaa waxa weeye webseedada iminka ama beejajka somaliland ee aad taqaano aada loo galo siyaasadda ka hadlaa iminka farmaajo iyo ciro isdaba wada farmaajona ammaanaya cirana ammaanaya ciddii farmaajo kasoo horjeeda caayaya ciddii ciro kasoo horjeeda caayaya ee calankii wadani iyo calankii kale garab wada waxa weeye waxay cadow ku yihiin wadani qudhiisa yaa ka reebi lahaa yaa ka qaban lahaa yaa odhan lahaa war annaga waxaa noo keenina wuxuu ahaa isagu ahaa cabdiraxmaan buu ahaa ninka la rabo inuu mas-uuliyadda qaato uu yidhaahdo war aniga hayla soo hadlin labadan calan isgarab wadana jooji aniga iyo farmaajina ha isgarab wadin laanno fariintaasi waa fariin khaldan haddaad u aragto inaad taa guul ku gaadhayso waa khalad waayo somaliland dadkeedu xagga haddii loola kaco codbaxyaasha ugu badani ma maqli karaan nin lagu ag sharaxayo farmaajo iyo isaga laisku ag sharaxayo ma maqli karaan waana sababaha keenaya in ay dadku ay maarata saa u arkaan waxa weye iska dulqaadkeedana wax laga rabaa de waxa weye jini ninkii keena waa saara iska dulqaadkeeda wax laga rabaa oo nalagu eedeeye maaha war sawiradan laisgarab wado calaamadan laisgarab wado hadalladan laisgarab wado khudbadahan laisgarab wado ee uu khudbaynayu leeyahay farmaajoan taageersannahay ee xaggan wadani baan ahay leeyahay dee adeer waxaan oo dhan waxa weeye wax khuseeya in xisbiga gudihiisa laga saxo dadkana sheegaysa cabdilaahi ma dad xisbiga ka tirsan mas-uuliyiintiisa dadkan leeday dhinacna farmaajo ka taageersan dhinacna maya maaha dad micnaha intooda badani qaar dee xilhayo way jiraan oo dibadda jooga xilhayo way jiraan waxa ku hadla way jiraan laakiin intooda badan waxay u badan yihiin xisbigu taageerayaal ma leeyahay ucud iyo kulmiyo taageerayaashooda ku arki maysid iyagoo calan kalena sita hadal kalena sita laakiin mashkiladdu waxa weeye halkan waxa weye cid ka qabataa la waaye 100 jeer baanu shir ka galnay war adeero muqdishadaasi iyo waxeeda isu daaya waa dowlad gaara waa nidaam gaara shaqo kuma lihin nimankan wadani ee ama hablahan wadani ee wadana taageera ee haddana kana taageeraya inaga daaya maamulka markaa joojin kara arrintaa waxa weye ninka ugu sarreeya ayaa fariintaa si adag u dhiibi kara laakiin haddaad aamusto aamusku waa maxay miyaan ogolaansha ahayn aamusku waa khatar haddaad dembi ka aamusto ood iska sugto ood marba aragto ood aamusto de adeer waxa weeye inaad raalli ka taha loo arkaya ummaddu arkaysa marka anigu waxaan leeyahay meesha maamul xumaa ka jirta
soomaaliya cid raacsan iyo cid aan raacsanayn meesha waxaa jirta maamul xumaa jirta. maamulka haddii la saxana waxan way saxmayaan, haddaan maamulka la saxinna dee sidan un bay ahaan doonaan oo wax qoyshan bay noqon doonaan. way cabdilaahi mar kale aan kugu celiyo waxaan rajeynayaa su-aasha inay ka jawaabto. muddo dheer baa xisbiga ka mid ahayd ilaa waqtigii ururada ahaa, eedeymahan ilaa waqtigii ay soo noqonayeen. adigu arrintaa maxaad kala socotaa in xisbigu xidhiir leeyahay dowladda federaalka ee Soomaaliya marka taageerayaasha laga tago? arrintaa maxaad kala socotaa? xiriir lama laha iyo uu leeyahay hadda ku oran maayo. waa arrimo gaar arrimahaas, laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa isu ekeysiiyey isu ekaansho halkay ka timi aniga kaaga sheekeeyey. waxaa keenaya marka ay dacaayadu san u samaysan tahay oo arrimuhu noocan yihiin oo adigu maamul ahaan aad raalli ka noqoto in waxaan ay saa u shaqeeyaan oo sawirkan iyo sawirkan la isgaraboodo aad raalli ka noqoto. adeer ninkaa ku maagaya ee waa tahay kulena kaama gardarna. perceptionka lagaa qaadanaya hadduu noocaan noqdana mid khalada maaha. wuxuu ku noqonayaa adaa ka aamusay, adaa ogolaaday in labadan af lagugu ammaano, marna muqdisho lagu ammaano marna adiga lagugu ammaano. haddaad ogolaato dee dhibkeeda adaa leh. marka maamul ahaan baa loo bahan waxan in la saxo. ana ku sheeg way cabdilaahi inkastoo ka gaabsatay inaad si saxa uga jawaabto su-aashaan ku weydiiyey, haddana markaad leedahay ka jawaabmaya su-aashan muddana laisku soo eedeynayay adoo macal ka mid a xisbiga in Soomaaliya xidhiir leediin eedana ay soo noqnoqotay. mas-uulka xisbiga ugu sarreeya Cabdiraxmaan Cirran aad ku eedeynayso in isaga uu arrintaasi ka aamusay eedan ay xagiisatay. adiga laftaadu muddada xisbiga ka mid ahayd eedahaas idii imanayeen laftaadu aad ka aamusnayd, soo la odhan maayo tuhunka xisbigaana waa la qabto eedaa Soomaali weyn adoo kula jirtay? maya meeshan waxa weeye falcaytan af lagama dhowro. anigu maalin kamaan aamusin qarannimada inaan ku dhawaaqayo, inaan caddaynayo, inaan sheegayo, inaan mowqifkayga qarannimada hadday wixii taageero u baahana taageerayo, wixii u baahan la difaacana difaacayo waan waday. maalina kamaan joojin, waana wadaya insha allah, waana waajib nin walba muwaadino madaxan inuu soo fahmo weeye. waxa weeye waa in aan loo soo jirsan in aan dhoweyn qarannimada. wax isku dhex jiraan meeshan ma jiraan, wax isku mulmalooqan ma jiraan. waa in la kala ilaaliyaa labadaasi inay isdhex galaan. ninka isku soo dhoweeyaa isagaa isdhigay meesha au yaallo. shacbigan iyo dadkan iyo qarankan midna aqbali maayaan madmadowga noocaasa. marka iska fogeyntu waxay saaran tahay ninkaa isaga loo baahan yahay inuu iska fogeeyo. laakiin anigu de waxa weeye waan caddeeyey, dhowr jeer baan caddeeyey, waan tilmaamay wuxuu qaranka u baahnaa ee waajibaad ahaa, ee ama taageero ahaa, ee ama ka gilgilasho ahaa, ama tilmaamid ahaa. waxaan is leeyahay kamaan gaabin intii ilaahay subxaana wa tacaala qadaray waan sheegay. way cabdilaahi haddaynu intaa kaga tagno arrimaha Soomaaliya iyo eedeymaha lagu eedeeyo xisbiga, adiga markii xisbiga laga ceyriyey sida ay mas-uuliyiinta xisbigu sheegeen muddo kamaad qayb gelin shirarkii fulinta iyo shirarkii hoggaanka sare ee xisbiga. dadka arrimaha ka hadlaana waxay sheegaan in muddooyinkii u dambeeyeyba xagga iyo xukuumadda lagaga gacan haadanayey oo aad sugaysay loo magacaabo digreeto madaxweynaha kusoo baxdo. bal arrimahaasi ka warrayga. horta dee inaanan ku qanacsanayn waa aniga kuu sheegay. muddo dheer kumaan qanacsanayn si wax u socdaan ilaa iyo 19kii wixii ka dambeeyey 19kii may horraantiisii 18kii wixii sanad iyo something baa waxa jirtay 17kii markaan soo noqonay ayaa waxa dhacay niyad jab xoog la dhacay. dadkii taageerayaasha ahaa waxa ku yimi morally in ay aada u niyad jabeen. dadkii xisbiga ka shaqeynayay activist ahaana sidaasoo kale noqdeen. waxay qaadatay eedhiinkii in aan ku kaliyeysto runtii mucaaradada xukuumaddii la dhisay ee cusbayd ee tan hadda jirta ah in aan ku kaliyeysto. eedhiinka way dhamaatay 19kii adigu bilowgiisii ayuun bay noqotay in markaa intaana waxaanu garab wadnay war wixii waa sanad iyo badh wixii inaga khaldamay aynu saxno. markaan waxba ka soo reynayn, markii maalin walba biyihii dhoobo lagu kordhinayo, markaanu aragnay maamulkii in lagu ciyaarayo oo halkan hoggaanka waxaa joogi jiro waad garanaysaa markaynu dagaal ka soo baxnay nin Shiina Dheere la yidhaahdo ayaa guddoomiye ku-xigeen ahaa. waad ogeed waxaa guddoomiye ku-xigeen reer awdala ayuu ahaa. halgankii buu nala soo galay, dagaalkii buu nala soo galay, markaasaanu ka soo baxnay. cod fiican buu keenay, wuu ku dagaalamay. ninkaa isaga ah habeen madow baa la yidhi xisbiga halaga ceriyo. oo maxaa dhacay?
waxaanu siinaynaa meeshan cabdirasaaq khaliif baanu gelinaynaa oo adeerde maxaa u gelinaysaan ninkanaaba jooge waaba reer awdale maxaa u gelinaysaan ma cabdirasaaq baan rabnaa meeshan aan soo gelino oo haddaa gelinaysaan dee markaa xogayaha guud geeya xogayihii guud markii hala geeye la yidhina wuxuu yidhi cabdiraxmaan xogayaha guud inan baan u wataa inankaasoo markaa xisbiga ahayn oo xubnihii xisbiga ahayn oo dadkii la yaqaanay ahayn inankaas kumuu ahaayo ninkaa khadar la yidhaahdo weeye oo adeer maxaa dhacay oo aynu ninkaa u geynaynaa ilan dadku waaba kala gobolle isku meel baaba ladiin tiriyaaye maxaa ninkan cabdirasaaq bayna xogayaha guud geynaa ku-xigeenkana ninkaa u daa reer awdal xisbigu sidaas ku qurux badan yahay inoogu daa dooddii halkaa ka dhalatay oo runtii dood adag ahayd oo aada u dheeraatay waktigeedii ayay ahayd halkaanu anagu ku kala xidhiidh furanay maalintaasa anaga isugu keen dambeysay wada shaqeyn toosoo auna intii dambe waxay ahayd malomoloqun ba ahayd iyo waxay ahayd warbar wax la hagaajin kara hala eego laakiin dhowr jeeroo dambe oo aanu fadhiisanay oo cabdiraxmaan isku kariyeysanay oo guddi noo baxay oo guddi nabadhala siiyeen oo aanu intaasoo jeer way jirtay intaasoo jeerba wuu gardarnaayo wuxuu sameeyey wixii aanu ku ballanina wuu ka baxay wixii aanu hagaajinaynana muu hagaajin wixii markay kasoo reebi weydena waxay noqotay aniga afkayga waxaan ka ilaaliyey xisbigii waan ka baxay sababtaan uga ilaaliya waxa weeye waa intaasoo baan waday waa intaasoo then waxaa la yidhi mar hadduu shir soo socdo cabdilaahina joogo halkan na ag warwareegayo arrintaasi khatar bay nagu tahay hala fadhiisiyo golaha laga saaro sidii baa laga saaray waa ogeedeen anigu maalinta waan ku faraxsanay alxamdulilah rabbi alcaalamiin leanna waxa weeye ninkii dee arrintaa keenay maan ahayn iyaga xaggoodii ka timi deen waxa weeye taageerayaasha iyo dadkaanu ka soo shaqaynay iyo ummaddaan meesha isugu keennay iyo intaba waxaan u sheegayaa cidda waddada ka baydha waa iyaga aniga maaha inta waxaan raba waddadii in lagu wado mar haddii lagu wadi waayey tanina tii guusha lagu gaadhaya maaha waana u sheegay waana lagu socdaa waana ka muuqataa damdamtan hadda baxaysa aad arkaysa la leeyahay xisbiya mucaarada guulaystay iyo keer baa guulaystay waxba kama jiraan labada xisbi marka lasu geeyo 40 bay haystaan xisbiga mucaaradka maxaafadka 40 buu haystaa laba xisbi baa 40 haysta waad arkaysaa marka dadku u kala qaybsan yahay marka waxa weeye stiil waxa weeye tan hadda la sugayo ee maanta ay u fadhiyaan ashir weynaha dhibaatada ka tagan waadi arkaya si loo qabto iyo si loo joojiyo midna la garan maayo dhinacii la qabtaba dhinaca kala qaawan haddii madaxa laga daboolo inta dambe qaawan haddii inta dambe laga daboolo madaxa qaawan xisaabtaa si u saxmaysa la garan maayo haddii la qabto waa jab haddii shirki la qaban waayna waa jab kale sababta waa maxamed qaana macnuhu waxa weeye markaad xisaab khaldan ka soo shaqayso ood maanta oo dhan khalad wado waxaad gelaysaa meel khatara oo dhinacaad u dhaaftaa aanay jirin siyaasadduna waa saas markaad soo wado haddaad sixi weydo khaladaadkii hore haddaad sixi weydo waxay ku gelinaysaa qoobadaa yarna meel aad ka dhaqaaqdaa heli maysid maanta run baan idiin sheegaya xisbiga qoobadaas ku jira dhinacuu u dhaqaaqabna waana khatar haddii la yidhaahdo wax laga qaado guddoomiyennimadii beeshii balagubadlana waa khatar haddii la yidhaahdo qolo beesha bariga burcaha la siiyo la siiyo see loo siinaya yaasa la siinaya dadkeediina meeyey waa su-aal kale haddii la yidhahdo waa la haysanaya oo ninkii hore haystay baa haysanaya oo ku dagaalgelaya oo dadka kale way daba taagnaanayaan waa khatar kale oo aaminkii oofu balcuquud ballamihii la galay in la oofiyo weeye ballamaa jiray hadal baa jiray hadalku inuu soo noqnoqdo maaha xisbigani dhowr jeer baa kursiga guddoomiyaha la bixiyey bixintana isagay ka timi annaga nagama iman maalintii ugu horreysaan ku niri war kursigaagaas iskaga fadhiyo waan bixinaya cidda ha ku oran si kale aynu uga shaqeyna bahalka isagaa meel walba la taagnaa kursigaan bixinaya haddii bixintii ay noqotayna annagoo hogaankiya ayaa kula talinaynay oo mar walba da shaqadii haynay ma ogtahay marka waxaan odhan jirnay war kursigaagaasi wax kale ma haysid kaasaad haysaa fadhi doorashada aynu ku gallo dadka wixii kale aynu keenno laakiin maxaa dhacay feeg ah ballanqaadyo feeg ah ma furmaysanaysaa in aanu ku galnay 17kii 76 wasiir oo uu gacantiisa ku saxiixay cabdiraxmaan oo hadda la haysto oo dadku cid walba hadda keena dil ay keeni karto 76 wasiir oo uu saxiixay ugu yaraan 5 baa ku jiray wasiir arrimo gudadeed oo loo saxiixay dad war dadka ma dhaqdo qofkuna inuu saa sameeyo ma mas'uuliyadu yahay ballamahana waa la ilaaliyaa sharaftana waa la ilaaliyaa oo waxyaalaha kugu soo noqonaya dalna laguma maamuli karo dadna laguma maamuli karo
inaad tiraahdo kan hor fadhiya iska kaxee waxa way xubin commissioner dad soo doonteen waxa la beeshaasaa leh beeshii baa 50 ardaaya intii 20kii ardaaba waxa weeye ardaa walba CV buu ka qabtay wardiyaha ka qaban oo ardaayadan runta u sheeg ma hayadhe ninun weeye nin baan qaadan doona idaayadhe ma jirto way maqlayaan ardaa walba salaadiintiisii odayaashiisii waayeelkiisii siduu isu lahaa waa idinka oo loo lahaa aroor walba waa idinka oo loo lahaa mataqaanaa kiini baa qoran oo isagu u lahaa afkiisa uga lahaa oo salaadiinta ay gurigiisa ugu noqonayeen uga baxayeen ardaa walba waxa dhacay inaanay iyagii noqon oo hal ardaa u noqday waana muuqatay inuu hal qof yahay waxaana taladu ahayd inuu yidhaahdo war soo hal qof maaha anaa soo saaraya idaaya wayna dayn lahayn runtii dadku waa sidaad xisbiyada kale kusoo saareen yacni haddii aad ka tallaabsan kari weydo maradaa yar oo wax walba aad ku turunturooto oo wax walba aad ku dhibaatooto oo wax walba ay dhibaato waa mashkilad wey iminka ardaayadii ku hungoobay xubintaa waayey dee waxa u soo baxay xubinta maaha waxay ka arkayaan waxay arkayaan ballanqaad nin odaya oo meel jooga oo intaasoo nin 30 nin u yimaadeen oo hal ardaaya oo uu ugu celceliyey oo 5 jeer 6 jeer ay gurigiisa ugu tageen uu yiri waan idin hayaa oo la waayey dee wax taas keenaysaa inaan lagu aaminin waxay keenaysaa qofku inaan waxba kaaga talagelin ila bini aadamku wax kaaga talagalaa soo maha inaan waxba kaaga talagelin bay keenaysaa marka runtii aad baan uga xumahay ballanqaadkan in la fuliyaa way fiican tahay xukuumaduhu iyo dadka doonaya inay wax noqdaan inay ballanqaadka fuliyaan way fiican tahay marka anigu waxaan jeclahay in haddii tii hore saa inaga noqotay iminka hawl baan wadnaa waxaan wadnaa waatan ururadii iyo madaxweynuhu soo celiyey waan ka xumahay inay soo noqoto laakiin waxa dow ah haddeerto sida wax isu saaran yihiin in la kala guro oo guurtidan iyo madaxtooyadan iyo urur furistan isgalay la kala guro waxaan cod dheer halkan uga sheegaya oo aanu madaxweynaha iyo cid walba khusayso u sheegayna iyo golayaashaba oo weliba golaha baarlamaanka ugu horeeyo waxa weeye waddanku jaam siyaasadeed buu ku jiraa xisbiyadana waa laga daalay isbedel baanu dadku u baahan yahay in la furaa waxaasna waa qasab haddii la yidhaahdo haysta oo 3 xisbi intay hoosta iska galaan ay yidhahdaan annagaa haysanayna oo dadka halkaa ku haynayna oo muddo dhaafka samaynayna oo ku jirayna taa adeer ma dhacayso waayo dadka inta badan ee diidan waxan ayaa badan waa in la furaa waa in dadka gacanta loo sii daayaa waa inay dadku helaan himiladooda iyo waxa ay rabeen somaliland baan joognaa khataro badan baa ku xeeran khatarahan ku xeeran waxaanu kaga bixi karnaa siyaasad cusub xukuumaddan meel bay wax soo gaarsiisay aaway xukuumadda kasii qaadi lahayd meeday may muuqataa labada xisbi may ku jirtaa kama muuqato labada xisbi laftooda ba socon kari laayihiin iyaga baa shirarkoodii qabsan kari laha iyaga yacni waxay u baahan tahay markaa xukuumaddan waxay u baahan tahay in caqli la keeno oo qaranku gebiya dee mas-uuliyad bay naga saaran haddii golayaal la yahay haddii la yahay mataqaana ama fulin ama guurti ama la yahay baarlamaan la yahay haddii la yahay xubno siyaasiyiina haddii la yahay xisbiyo waxa ina saaran waxa weye war maxaa kaa horeeya si fiican bay wax inoogu socdeen si aan wax inooga noqon waa in ururadii la furaa ururada marka la furo waddanku inoo hagaagaya dad cusub baa soo baxaya siyaasadda maanta jirtaana waxa weeye dadku waxay rabaan horumarin bay rabaan horumarintaa ciddii keeni lahayd ee waddanka ka dhigi lahayd waddan warshada ku shaqeeya oo mataqaanaa waxbarashadiisa horumarsan tahay oo caafimaadkiisa horumarsan yahay oo dhalinyaradu shaqo badan hesho siyaasadda ciddii keeni lahayd in loo gacan banaana ayaa loo baahan yahay laakiin la fadowreyn in mataqaana 360 la wareego oo marba xaggan laga wareego marna xaggan laga wareego adeer ma soconayso waana taan leenahay hadda aan ku doodayno wey cabdilaahi waxaa sheegtay ama gudoomiyaha xisbiga wadani doctor caro aad ku eedeysay in ballaamo badan uu ka baxay oo deegaano gaara la galay oo dad gaara la galay adigu muddadaa xisbiga ku jirtay ma jirtaa ballan gudoomiye caro intuu kula galay uu kaaga baxay sideedaba horta mid iyo laba maaha annagu ballanta aanu ugu weynaan lahayn waxa weeye xisbigan see loo wadaya ballan anigii khaasa maaha may mid ii gaara ma jirto mid ii gaara aniga weligiiba kama qabsan mid ii gaara oo aniga ii gaara oo isagoo ka baxay ma jirto laakiin waxaa jira tii aynu ku shaqeynaynay ee mabaadidii xisbiga ahayd ee shaqadii xisbiga ahayd oo dhan ayaan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa beelaha waxaan ka hadlayaa dadkan deegaanada waxaan ka hadlayaa waxyaalaha xisbiga ku guulaysanayo waxaan ka hadlayaa dadka mas-uuliyiinta ah ee aan laga maarmayn in runta loo sheego ayaan ka hadlayaa waa meelaha ay baashun ka tolanto wey dee inaad fahmayso ma ogtahay markaa waxa weeye iminkana waxaanu doonaynaa adeersaan kuu sheegay isbeddel baan dalka ka doonaynaa bahalaha in la furaanu doonaynaa waanu ku baaqaynaa
cod dheer baan ku baaqaynaa mar dhowna burhaantayda dibaddaan soo dhigayna waayo waxaa jira dadkan wadana diidan aad arkaysa faraha badan gudaha iyo dibadda joogayna urureyno isu keenay meel isugu keenay iyo dadka kale ee xisbiyada kale ama ururada kale ama meelaha kale ee aan ama hadda doonay inay ka qayb qaataan dhalinyarada ah waxa weeye hal dalad baanu ka dhigaynaa daladaasi cod bay yeelanaysaa codkeedu waa inuu shacbiga oo dhan oo soo baxay noqdaa oo ka dhex shaqeeyaa oo codkaasi uu keenaa in xisbiyada la furo marka la furana in la helo markaa la helo hadduu ilaahay yidhaahdo wadadii aynu kaga bixi lahayn azmadan aynu ku jirno waayo azmada noocan waxa weeye xisbiyadu markay noocan noqdaan dalkii waxbaa ka dhiman way cabdilaahi waxaanu kusii soconnaa guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaynu kusii siqaynaa balse waxaan ku weydiin lahaa intaan wararsi ku guda jirnay waxaad ka hadashay xogeeyaha guud ee xisbiga khadar oo aad sheegtay in xisbiga aanu horey uga mid ahayn oo dusha lagaga keenay xisbiga bal arrimahaas maxaad uga jeedaa faahfaahi bal halkaa faahfaahin uma baahna waan kuu sheegay su-aalaha wixii nuxuraa la isweydiiyaa waxaan ku yidhi ninkaas wuu cusbaa wuu yimi annaguna maanu ogolayn waxaan lahayn meel ka soo galaa ma jirto haddaad cabdirasaaq la doonayso xogeyaana ku qor oo xogeyaha gee xisbigana ha dhaqaajin meel kale ha u dhaqaajin qaabkaasay qaabka ku socotay annagoo arkaynay markii horeba uu racday inaan meesha maaragtay hawshiisii lagu talax tegey haddana haddii uu ka baxay uu cadda meesha in la keeno cabdirasaaq la keeno cabdirasaaqna runtii taa uu doonayay marka laakiin niman ujeeddo leh ayaa hawshaa keenay waana halka uu konfurent ka dhacay way cabdilaahi muddooyinka u dambeeyey waxaa socday shirweynihii waxaa socday qamaqaabadii shirweynaha xisbiga wadani oo guddi xitaa loo saaray bal shirweynahaasi ka waran guddoomiyihii xisbiga waxa uu sheegay inuu tartamayo mar labaad aduu yaad leedahay xisbigaasi guddoomiyenimadiisa oo lagu wareejinaya xisbigaasi cidna lagu wareejin maayo cidduu ku yiri waan ku wareejinayan waxba umuu sheegin isaguna hadda guddoomiye ma haysto oo guddoomiyenimadaadu cabdiraxmaan ninka maraykan ama ingiriis ama jarmal xeendaalka somaliland ciddii ka baxsan miyuu casili karaa miyuu magacaabi karaa hadda isagoo guddoomiye ah su-aasha ma ka jawaabi kartaa cabdilaahi su-aalaha aad ma ka jawaabi kartaa aad baan ku weydiinaya su-aalaha may kama jawaabi kartid adi waa runtaa gudaha uguma jirtid cabdiraxmaan wixii khaarij ka baxsan somaliland ma xukumo haddaanu xukumin sababta waxa weye xeerka xisbiga sheegaya awooddiisa maaha hadda guddoomiye dhamaystiran ma haysto haddadaa u joogo badhkaa uu haystana inuu sii daayana ma ogola inuu bixiyana ma ogola inuu haystana wuu rabaa yacni marka sababtan kuu sheegayo waa halkii maskii yiri qoratada hadduu tufana wuu nabeelaya hadduu liqana wuu dhimanaya waxa weye maanta arrintiisu halkaas kusoo ururtay waa shirweynaha la sugayo waxa weye wixii oo ballaama ahaa oo isgaadhay maanta waxay keeneen in xisbigii halkii jaaniskii ugu wanaagsanaa ee uu dad ku kasban lahaa kanuu ahaa shirweynuhu ahaa laakiin muxuu ka helayaa wuxuu helaya jaaniska waxa ka dhacay dhibaatadii ugu khatarsaneed baa ka dhacaysa beelo dhan baa ka niyad jabaya dad dhan baa ogaanaya inaanay meesha waxba jirin hadda shirkii dee waxaa la isku hayaa dib ma loo dhigaa ma la iska daayaa ma la qabtaa goormaa laga dhigaa yaa laga dhigaa su-aashaas way taaganta waad arki doontaa haddii laysku xejiyo ama beelaha darafyada laga maarmo oo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo saa laysgu xejiyo sida hadda la sheegayo oo beelaha darafyada laga maarmo beesha dhexe laga dhigo dee waxay noqonaysaa arrin cajiibay noqonaysaa oo waxay noqonaysaa xisbiga sheeko aan looga baran bay noqonaysaa soo garan maysid oo beelihii darafyada fogeyn baa ku jirta awalba haddana in lasii fogeeyey noqonaysa kuwii loo ballan qaaday inaan waxba loo hayn bay noqonaysaa kuwa hadda loo cabra laalaadinaya inaan wax isku hadlayaan aan helin baa muuqanaysa wax halkaa go-aya oo shirkaa ku go-aya calaa kulli xaal adir warka marka lasoo koobo ma jiraan way marka laga tago guddoomiyenimada iyo tartanka lagu jiro guddoomiye cer isagu waa musharaxa u tartamaya doorashada madaxweynaha soo socda somaliland adigu rajaynta leeg ayaad ka qabtaa in cabdiraxmaan cero uu noqdo madaxweynaha muuse bedelaya soo socda zero muuse soo noqonaya waa la hubaa haddii saa doorasho lagu galo 5 sano ee soo socdaa waa waxa weeye muuse bixi baa soo noqonaya waana caddahay sababtan u baaqaya wax kale maaha dad aan jeclahay ummad aan jeclahay hablo aan jeclahay dhalinyaro aan jeclahay odayaal aan jeclahay dad waaweyn oo aan jeclahay ayaa ka buuxa xisbiga inay niyad jabaan oo qalbi xumaadaan oo hadhowto meelay ka soo noqdaanba la waayo ayaa khatara waa sababtan qayla dhaanta u sheegayo ma guulaysan karo sababaha lagu guulaystana ma hayo ha eegina tv-gan iyo sheekadan ruwaayadda waa la casheeyey waa la quraacday calan baa la lulay maaha somaliland waxa deegaano wada shaqeeyey is urursaday
dad keenay individual waxba laguma helo nin tv soo istaago keligii yimaada waxba laguma helo anigu ma odhan karo dadkayga dhan anaa haya ma odhan karo nin maanta odhan karaa raggaana lama hayo dadku waxa weye isu doorto waa la yaqaanaa cidda heshiisa waa la yaqaanaa dadku say isu doortaan waa la yaqaanaa xisbigan shaqo laga qabtay ma jirto degmo ma dhisna oo gobol ma dhisna oo meel lama dhisna xaruntaa yar baa dhisan xaruntana waxa weeye 40 shaqaalaha baa jooga oo mushaar wada qaata gelin hore gel dambana waa loo garnaqaa adeer way dhacayaan taa cidna ha weydiinin muuse bixaana soo noqonaya waa la hubaa xaqiiqatan taanu ka rabnaa waxa weeye waxaanu ka rabnaa madaxweyne muuse biixi inuu furo xisbiyada si dalku uu u helo rajo cusub uu helo laakiin dadkan lagu maaweelinayo durbaanka waan dhaafnay xiligi doona assalaamu calaykum way cabdilaahi ugu dambeyn adiga rajadaadu maxay noqonaysaa maadaama uu xisbigu cid hore u soo martay xisbiga wadani hadda lagaa cayriyey xisbiga maxay noqonaysaa rajadaadu ma dhanka iyo kulmiyaad u socotaa mise wax ku jaar ma kale horta kelmadda lagaa cayriyey ku soo noqnoqotay baan kuu sheegayaa ninka ragga ah ee raba inuu soo baxo horta waa laga ceyriyaa xisbiyada doctor mahatir waa taqaanaa mahatir taarikhdiisa waa taqaanaa waa ninka malaysia bedelay ee ka dhigay dunidan ku daray mataqaanaa koowaad ku daray dalkaas dalka saddexaad baa soomaaliyana uu ka hooseeyey waa dalkaa ninka bedelay 25 sano wuxuu kaga dhigay wax aan la arag oo la maqal kaga dhigay mahatir taa uu sameeyey xisbigiisa waa laga eriyey mahatir ku guuleystay dalka inuu qabsado tabtaasaan rabaa anigu rajadeeda haddaad i weydiisay dalka inaan madaxweyne ka noqdo ayaan doonayaa mabaadi aan anigu aaminsanaho aan wado oo reer wadanina ay inala qabaan dad iyo rag iyo dumarba ay nala qabaan oo iyaga ka guuxaya oo dad cadaaladda jecel baa ka buuxa aanu wadno ayaan aaminsanahay somaliland waan usoo bandhigi doonaa min alif ilaa ya gobol walba waxaan ugu talagalnay iyo horumarintiisa iyo siyaasadiisa iyo sidaan uga fakerayo aragtideeda waan soo bandhigaynaa waxa weye marka aniga keliyana maaha waxaanu nahay dad wada socda oo dalkan isbeddel la raba waxaanu ku baaqaynaa marka dalkan isbeddelka yaan laga hor istaagin gacanta ha loo sii daayo waa xisbiga wadani qaar ah qaar xisbiyada kale kusoo maaragtay kasoo biyadiiday dad badan oo hadda aan is urursanayna ayaa jira oo aaminsan annagu waa aragti waxaan ku shaqaynaynaa aragtidaasana ka laxday xisbigu waxa weye dalkan horumarkiisa isku wadkiisa dadka is ogolaysiinta difaaca dalka waxyaalahaasoo dhan aanu ku talagalno mid walba intaasoo qodob uu sii yeelanayo ayaan ugu talagalnay dalkanna meel beelahu yaalaa sida hadda maaragtay dadkan beebka kusoo jiraa dad badbaadin kara maaha marka waxaan doonaynaa insha allah inaan noqono xukuumaddan waxa wanaagsan ay qabatay iyo hawsha ay qabatay iyo halka ay keentay oo aan runtii anagu ugu mahadinayno in aanu kuwii kasii kaxayn lahaa ee halka kasii wadi lahaa ee gaadhsiin lahaa dalka halka uu doonayo inaan noqono baan doonayna adeer daawadayaal intaasi waxaynu kusoo gabagabaynaynaa wareysi gaara oo aanu kaga qaadaynay magaalada hargeysa siyaasi cabdilaahi axmed maxamed dahab oo kamid ahaa horey uga mid ahaa xisbiga mucaaridka ah ee wadani ilaa haddana siyaasi madax bannaan cabdilaahi aad iyo aad ayaynu kaga mahad celinaa wareysigan gaarkan